أولانيا عبد الله حسن إريباسي أولانيا ولد عينيا وصاحبكي عبد الله حسن الله وسكمدوا بانو عبد الله يعني وسكمدوا بانو هين وحنا نسكمد هين وهو الله وحويان حاجة كيساسكا يا حاجة كله هذو كيسان سند مغناطهم فين كالكا وما دام كيسو ما كبري قد ما ويدين عبد الله يانو يسوون مركو بحية مركو مغيا كيسيا يا كان بكو أيون كودي قد بيمو ويدين أنا سلم بودي مركاورت سومدو بانو عبد الله ما هذا تي سومدو بانو قدنا هدي لا يرادو وحنير كريدي شيء عبد الله ورسول عنا وصاحبتي إلهي مكرس عافانا سيو إلهي شقدنا يحيي كان إلهي كوسترو ما عندنا وحوي لك عم فرنا يبسول ويلنا وعمل ما هذا كعفنا بسولو كعمها جوان هاي والفرن بتاعنا أنا يسرع كيس كله كاو سعيد كبيس وحوي الهيل يهو وانو تاجوان كاجنا هاي وانو بسول ويل وحن كلام سلام يا هل كان ضياش هو شيء مستر أحمد عبد الداير تعوّل الله طريقة وأنت بيا لقوه حتى أنت أحمد روتي واحد بدم ونقفت واحد بدم والله روتي واحد بدم ونقفتي وأيوة كيسس كهالك أنت بدن أنا يا هالك بحالتين مكان وحوي الهول بدن أو إفورتن وقلتني أيوة أنت نقفتي لا يكاد سايس يعملونه أنا أقول لهم ناي ومدينة وتكون مقاطعتي أفكر حق بتروى الله شيء قوي يا الله إلى ضوء كباتنت تدوينا أنا وحنا شيء إذا البوليس قالوا يا معناه إذا البوليس منو كم كوبية تدرك الملون دوك كوبية أفكر البوليس لما قال يا الله تطوّلها كو حدا يقول تطوّلها كسفوها بوليس منو كي تدوينا وحنا هذا البوليس سوشيال كونتراكت بالله تدوينا نكلم إذا كانوا يتكلم المدة إذا كنا نتكلمنا ما كانوا هالكلمة بأن البوليس بانو إذا بانو وحنا يلاقينا محران تلودين ياي loyalty inuu yahay conscious inuu yahay inuu magaraysa education waxa soo dhan todobada ereyo isu soo riyay baa international qofku inuu police inuu ku sitoobayta okay police ka hadaba ninka police ka qoraya ya polite inuu yahay waa polite oo waxa weeyaan waa police weeyaan waa nin dhaga fudud inuu yahay oo mudaaca إيش وحويان واللويالتي إيدنا وحويان والإديكيشن سيد وكونسيوس ويردو قادي إيدنا والإديكيشن أنت أقف إنه كسيكو وفتا على أرضك فضول أرضو قادي أو الصبر له ووحين كاسو اللي يسكسو الريك البلاس ويا هذا بنيكي كلمة لقى هنا وحويان وبريسوشال كونتراك وحلقة صوت قريب تدويني بالك الصحراء تدويني هذيك بحال هذيك الباهية بليس accountability مال هذيك الباهية هذا راح حساب تطال وأتسيكتان سيا أحمد بو سيكتين يا عبد الله حسن يا واحد أيضا كلام رب تقورة بقى والله راح حساب توا هو إحنا ودية هو إحنا دليلا هيك سيجنا سيجا وايو وحويان هتاين دليلا هيك سيجين ونسمع عشيننا waxaan inta ku soo gabagabeynaya waxaan leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa sidii wanaagsaneed ee ay gacmaha ay magalaysaa ama baalasayada ay u ahaayeen maayirka dawladda hoose ee Gabiley ee ay hiiliyo ay noogu ay maxay noola barbartaagnaayeen arrimaha marka nabadgelyada iyo arrimaha kaleba waxaan kaloo aan halkan ka magalaysaa isagana bogaadi iyo sidii ficneeda loo shaqeynayay maamulka gobolka oo maxay uu hogaamiye ka yahay maanta uu ka joogo cali case waxa weeyaan oo had iyo jeer habeenkii iyo oo saxaabtaan waxa uu sheegay oo dhameysnay iyo baasqale waan inaan aad u naqaano waan inaanu inta soo wada shaqeynay waan inaan ka soo boodi doonaa jeclaan doontaan hadii ilaahay shaqaduna ma aha oo mid iska socotay shaqadu waxa rag bay ku socotaa waxa weeyaan intii aanu halkan joogay magaalada horta guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada joogay Gabiley oo badnaa waxaan ku amaanayaa horta dadka jooga oo amaanaya oo dadkeegii odayaashna waxay ahayn lafdhabarteeda kuwa anaga gacanta weyn noo geystay ahaayeen oqaasha iyo waxgaradkuba waxay ahayd dad isku xiran dad aan jeclahay bay ahaayeen
dad hawsha aanu gallo nala dareemo oo nala gurmado oo nala duubtay ahaayeen waana lagu mahadnaqayaa magaalada Gabiley ma laha tuug ma laha magaalada Gabiley waa mid soo galo haddii wax la hadana magaalada Gabiley sakhraan ma laha wax xabagta cabara ma laha magaalada Gabiley waxay leedahay integrity bay leedahay sharaf bay leedahay aan ku arag gobolada iyo degmooyinka kale kasoo shaqeeyay waxa kale oo maanta hawsha aad igu ammaanteen anna waan ku ammaanayaa oo waajibkeedaas aha run baana ka sheegaya been ka sheegi maayo waxa weeyaan waxaan aad ugu mahadnaqayaa anugu oo gacanteeda ahaa oo aan mahadna u sheegaya lafdhabarta ciidanka booliisku waa dadweynaha iyo odayaasha cuqaasha waxa soo raaca oo maanta iyaduna nolosha koowaad ee booliiska waa ilaahay ka maansiya waa gobolka gudoomiyaha degmada maayarku waa ninka hawlgeliyo waa ninka loo dowladtiisa ka ammaani maayo wax jiraa sheegaya horta haddii aanu gacanta dowladda hoose aanay gacanta ku hayn booliis may dhaqaaqeen mashaakil dhaca looma gurmadeen iska daa degmooyinka kale markaanu tegayno isagu marmarra weliba ay dhicin degmo kale oo aanu raano waan idin soo gurmaynaa shidaal si ama magarana may dhicin waa degmada waa lagu mahadnaqayaa waxaa kaloo lagu mahadnaqayaa had iyo jeer waanu is ognahay waanu is wada joognay waanu is xaalad ogeyn habeenkii halkaasoo roodhida ku wada cunayn beenna sheegi maa ilaah habeenku roodhida ayaan halkaa habeenkii ku wada cunayn intii aan joogay waxyaabo badan baa loo suurto galay qayb ahaan waxaa loo suurto gashay in halkaa saldhig halkaa laga furay hoose oo ruga oo suurto gelisay in ciidanka taraafikaduna ay halkaas ay ku asturnaadaan oo aqal karaa ku jirtay maanta way ku asturan yihiin waana saldhig dee maanta aynu ku isticmaalno oo rugtii taraafikada iyo tii biliiskaba waxaa kale oo lagu mahadnaqayaa oo aan xusuustaa oo aan ku xusuusan doonaa isgaadhsiintu waxa weeye waa ugu imboortsan nabadgelyada haddaan laismaqayn laisuma gulman karo telefoonaduna inta la deedayaaba dee makaranaysa ama nambar la raadinayaaba waqtigu kala dhaca waxaa shabakad buu noo sameeyey guddoomiyuhu shabakadaasoo isku xidhan oo aan la weeg isku xidhan oo nabadgelyada ku ilaalino oo aan nina la waayin sada dhexaaday tahay xilliga dootaba ahaatay waxaasoo dhan waxa weeye waxaan uga mahad celinayaa dowladda hoose waxaa kaloo mahadnaqayaa maamulka gobolka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka oo arrin kasta oo dhaca oo mashaakila oo lasoo sheego iyagu naga hormaqli jiray inta badan iyagu naga horguma jiray iyagu nagu dhiirigelin jiray oo aanu isku garabhayn marigana aad ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahadnaqayaa mahad waxaan leeyahay ciidanka qaybta jooga dee raggu iskuma jiro haddii aanaan kala furannahay ama ay aan dabacsaani jirto ammaantaasna may timaadeen maantana fashil baan iman lahay anigu waxaan ka tegay halkan waxaan u guuray oo la ii bedelay afhayeenka ciidanka booliiska idinkamaan teginoo afhayeenkiinni baan aymi karaa ama gobol ha ahaato ama degmo ha ahaato ka idin hadlaya ee aad la soo xidhi doontaan ama saxaafad ba ahaatee qofka aad la xidhiidho ciidanka booliiska la xidhi doontaan aanu noqon doonaa insha allahu dee magaaladeedana kolley waan gurnayn doonaa markaa maa waxaan leeyahay waxaan kugu boorinayaa inaad raggii sidaa ula shaqayso axmed cabdi daahir oo ku nas run baa idin sheegay axmed haddaanu iman fashil badan baa lagu iman lahay ilaa anu taliya saldhig mayihiin laakiin waxba sii wadwadi maaye axmed ilaahay ha guuleeyo allah ha guuleeyo waana waktiguna uu gaaban yahay saasaan xilkii ugu wareejiyey ma hadda waxaan leeya ilaahay kugu astiro anna igu duceeya in ilaahay igu astiro hawsha aqabo doono wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu